أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة لباد سلسلة أنا قلت لك لي نبي صلى الله عليه وآله وسلم شمائل كيسة هديتهاي نبينا صلى الله عليه وسلم قاب أبور كتشركي سوءها هديتهاي أخلاق ذي يقاب دقن كي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. xalaqadii labaad weeye waxaan kaga hadlaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam sifaadkiisii khalqiga ahaa qaabka jidhkiisa u sabaysnaa suuradiisa daahirka ah iyo siday u taalay oo ka mid ah waxyaabaha ay ummaddu ku dadaashay khaasatan nabiga dadkii raggii arkay dadkii nabiga la kulmay saxaabadiisii waxyaalaha dadaalka ku bixiyeen waxaa ka mid ah inay nabiga jirkiisa sallallahu alayhi wasallam sifeeyaan iyo suuradiisa sida uu abuurnaa si guud iyo haddana xubnaha qaar ka mid ah si tilmaameen nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam taasoo macnaheedu tahay inuu ruuxu ka garanayo markii tilmaamaha uu helo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam suuradiisii uu dadka intiisa kale ka garan karayo. qodobka ugu horeeya waxaan leenahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu siiyey jidh aad u qurux badan, suuro aad u qurux badan. bini aadamka ilaahay abuuray kuwa ugu qurux badan buu ka mid ahaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. sidaana waxaa ku sifaynaya saxaabadiisii aragtay ee la kulantay. waxaa ka mid a saxaabiga ilmaadeerka ay ahaayeen, marna gabadhiisa qabay faatima, marna muxuu ahaaye nebiga sal alla alay wasalam noolaa muddo dheer, علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحاوليه هي لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. خرتي يقداشي تونا وحنبي محمد صلى الله عليه وسلم مثال أما لم إذا ما أركن بويري. سيدو كاليت جابر بن سمرة صحابي قال لي له أيا وحوليه هي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحان أما ليلة إضحان، يعني nabiga waxaan arkay sallallahu alayhi wasallam habeen cadda ah, habeen dayax oo dayaxu aad u iftiimayo ayaan arkay. wa calayhi xullatun xamraa, nabigu marka wuxuu qabaa isku joog mare isku jooga oo guduudan ayuu nabigu qabaa sallallahu alayhi wasallam. markaas wuxuu yiri waxaan bilaabay marna inaan isaga fiiriyo marna aan dayaxa fiiriyo. markaas wuxuu yiri labadoodu isu fiirinaya, dayaxa dhalaalkiisa iyo iftiinkiisa iyo nabi maxamed iftiinkiisa sallallahu alayhi wasallam labadaasuu isu fiirinaya. mar kanaan fiirin buu yidhi marna kanaan fiirinaya. wuxuu yidhi jaabir falahuwa cindii axsanu min alqamar. wuxuu yidhi nebiga sallallahu alayhi wasallam aniga ahaantayda siday iila muuqatay nebiga ayaa ka quruxsanaa dayaxa, dhalaalka dayaxa ka baxaya nebiga ka qurux badnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. jaabir bnu cabdillaahi saxaabiga la yidhaahdo ayaa isaguna wuxuu leeyahay xadiiثu nebiga ka warinaya salى اllahu عalayhi waalihi wasalam wuxuu tilmaamayaa nebiga salى اllahu عalayh waalihi wasalam wuxuu leeyahay ambiyadii baa la ii soo bandhigay, nebiyadii baa la tusay nebiga sal lla alay wasalam ka horreeyey, curida calaya alambiyaa. markaasuu nebi walba siduu u ekaabuu nebigu tilmaamay sal lla alay wasalam. markaasaa wuxuu yidhi wara'aytu ibraahiima calayhi الsalaam faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan saaxibukum. isagaa iska wada ibraahiim baan arkay buu yidhi, nebiyadii la tusay buu ka mid ahaa. nebi ibraahim muxuu ahaay abulambiyaa iyo khaliiluraxmaan nebiga awowgii ahaa sal alla alay wasalam. nebi ibraahim baa la tusay buu yidhi, cidda ugu dhow xagga suurada iyo u ekaanta waa aniga buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. bimacnaa awowgii ibraahim buu aad ugu ekaa, ibraahimna aad buu u quruxsanaa. waad garanaysaanoo dee faraciisa waxaa ka mid a yuusuf oo uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam quruxda niskeed baa la siiyey nebi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam. marka nebigeennu sala allahu calayh waalihi wasalam qaabka ilaahay jidhkiisa u abuuray wuxuu ahaa aadame ilaahay qurux u dhammaystiray baa aad u qurux badan. muslim wuxuu soo saaray sidoo kale iyo tirmidi min xadiidi abi tufayl wuxuu leeyahay kaana abyada maliixan muqasadan. nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ahaa mid cad waa u tegi doonaa midabkiisa oo qurux badan oo jidhkiisuna dhexdhexaad yahay. wuxuu ka wadaa
nebigu sal alla alay wasalam jidhkiisu wuu sohnaa yacni hilibna ma lahayn caato weyd ana ma ahayn nebigu sala allahu alayh waali wasalam bal jidh soohan oo muxuu ahay dhexdhexaad ah ayuu nebigu lahaa sala allahu calayhi waalihi wasalam oo jidhkiisu sidaasuu ahaa guud ahaan marka sidaasuu u quruxsanaa xubnihiisa xubin kastoo ka mid ah ilaahay baa qurxiyey tabaaraka wa tacaala haddaynu xubnaha qaar ka mida tilmaamo ka bixinno iyo sida ay axaadiistu uga warrantay maalan nebiga sal alla alay wasalam jooggiisoo kale ma aad buu u dheeraa ma gaabnaa ma dhexdhexaad buu ahaa yacni waxa weeye jooggiisa haddii laga hadlo nebigeennu sala allahu calayh waalihi wasalam sida saxaabadiisu tilmaamayaan anas bnu maalikin wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sal alla alay slam rabcatan laysa bialtawiili albaa'ini walaa bilqasiir nebigu wuxuu ahaa sal alla alay wasalam itaal dhexdhexaad ah nin aad u dheer oo dherarkiisu dadka ka baxsan yahayna ma ahayn nin gaabanna ma ahayn dhexdhexaad buu ahaa nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam sidaasaa lagu tilmaamay yacni waxa weeye itaal dhexe oo aan aadna u dheerayn aan gaabnaynna ayuu nebigu itaalkiisu ahaa sala allahu calayhi waalihi wasalam sidaasay axaadiistii u tilmaantay isku raacday rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam midabkiisa nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ayadana markay tilmaamayeen xadiidka anas wuxuu ku tilmaamay laysa bialabyadi alamhaq walaa bilaadam caddaan zaa'ida oo boosha ma ahayn madowna ma ahayn nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ahaa caddiin casiin oo yacni isku jira midab isgalay oo isku jira oo aan casiin booshoo kan yurubiyaankaoo kaleana aan ahayn madowna aan ahayn midab dhexdhexaaduu nebigu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaana asmara allown yacni midabkaasi dhexdhexaadka ayaa rasuulka midabkiisu ah sal alla alay wasalam xadiidka abu hurayra macnaha sii caddeeyo wuxuu leeyahay kaana abyada kaannamaa siiqa min fida nebigu waa casaa sal alla alay wasalam waxaad mooddaa buu ihi casiinkiisu wuxuu ahaa casiinka waxaad mooddaa in laga hagaajiyey silfarka ama baashan aynu u naqaano muxuu ahaayey fidada macdantaasaad mooddaa in nebiga laga sameeyey oo laga hagaajiyey yani midabkiisa markuu sii sheegayey casiinka nebiga sal alay wasalam uu sii qeexayey alimaam albayhaqi sidoo kale baa macnaha sii caddeeyey xadiidka uu dalaa'ilka ku warinaya min xadiidi cali bn abi aalib cali bn abi aalib baa sii sifeeyey casiinka nebiga sal alay wasalam wuxuu leeyahay kaana abyada mushraban bayaaduhu bixumrah nebigu wuu caddaa caddiinkiisana guduud baa ku jiray yacni caddiinkiisa guduud baa ku jirayoo ma ahayn caddiin oo baxti a ma ahayn madowna ma ahayn nebigu sal alla alay wasalam balse wuxuu ahaa caddiin uu guduud ku jiro casiin ah ayuu nebigu ahaa midabkiisu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi taana waa nebigeenna sal alla alay wasalam midabkiisii iyo sidii uu ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxay tilmaameen sidoo kale oo saxaabadu ka warrameen nebiga timihiisa sal alla alay wasalam iyo siday ahaayeen waxay leeyihiin nebiga sal alla alay wasalam timihiisu laa biljacdi alqatat walaa bisabti nebigu sal alla alay wasalam timo adag oo yacni jareer ah ma lahayn timo sii daydsanoo iska fidsanna ma lahayn timiha nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam waxay ahaayeen sidoo kale timo jilji dhexdhexaada kaana rajila shacar timo aad mooddo mar walba inay shallaysan yihiin oo aan sida timaha hindidoo kalena aan furfurnayn oo laalaadin oo aan yacni waxa weeye sii daysnayn sida timaha afrikaankaoo kaleetana timo isgalay oo adag oo muxuu ahaayey ishaystana aan ahayn timaha nebigu timo noocaasay ahaayeen bay ku tilmaamayaan xagga midabkana waxay leeyihiin kaana shadiida sawaadi shacr nebiga tiintii sal alla alay wasalam aad bay u madoobayd waa quruxdaa sidaasa asalkuna waa sidaa timuhu inay madow yihiin bay qurux ku leeyihiin laakiin waayahan dambaa waxa weeye waxaa soo baxay in la yidhaahda timihii halla caseeyey ku quruxsan yihiin timo ilaahay siduu ku abuuray buu shay walba ku quruxsan yahay oo madowgaa aad bay u madoobaayeen timaha nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam timaha nebigu sal alla alay wasalam waxay ahayn timo markay gaaban yihiinna dhegta carjawdeeday soo gaadhi jireen markay dheeraadaanna ilaa garbahay gaadhi jireen waa halabada nebiga sal alla alay wasalam timaha laalaada yani kaana cadiima aljummati ilaa shaxmati udunayhi ilaa dhegta carjawdeeda ayay halabada nebigu gaadhi jirtay timaha laalaada marmarka qaarkood kaana lahu shacarun
yadribu mankibayhi mar labada garbood ayay timihiisu soo gaari jireen sala allahu calayhi waaalihi wasalam. marka timahoo la dheeraysto oo la sii daayo oo ilaa ama dhegta gaadha carjadooda ama ilaa garbaha gaadha, yani wax weeyaan hadyigii nebigeennu saas ah sal alay wasalam. dabcan way bannaantahay ruux timaha waa xiiri karaa, waa gaabsan karaa, laakiin timaha oo garbaha lagu sii daayo dumarka khaas kuma aha. nebiga sal alay wasalam timihiisu saasay ahaan jireen, ayadana sidaasay u tilmaamayaan timihii nebigeenna sal alay wasalam. marka timo yani aadamaha timihiisa timo dhexdhexaaday ka ahaayeen. aadamuhu qaarna timihiisu waa timo furfuran oo sii daysan oo aan isqabanaynin oo mid u kala daadsan oo kala socda. midina qaarna waa qaar timo adag oo timo jareera oo aad u adag oo ama madaxa ku dhegaya ama iyaguba isku marmaya. timahaana ma lahayn, kuwaana ma lahayn, timo dhexdhexaaduu lahaa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waxay sidoo kale saxaabadu tilmaameen nebiga sal alay wasalam iyo garbihiisu intay isu jireen. waxay leeyihiin baciida maa bayna almankibayn, labadiisa garab intay isu jiraan way kala fogaayeen, way kala durugsanaayeen. yani waa meesha la yidhahdo qaar horuhu u weynaa, waana quruxda gaar ahaan ragga. yani wax weeye nebiga sal alay slm labadiisa garbood isma saarnayna way kala fidsanaayeen, wayna kala fogaayeen. sidaasay ku tilmaamayeen nebiga garbihiisa sal alay wasalam. rasuulka sala allahu alayh waali wasalam isagoo 63 sano gaadhay haddana timihiisa ciro badan ma yeelanin. saxaabadu waxay leeyihiin garhkiisa iyo madaxiisa inta cirada ciraysatay haddii la tiriyo labaatameeyo timo ayaa cira gaadhay ama ka yar oo caddaa. haddana nebigu sal alay wasalam sidaa kumuuna dayn jirin oo wuu cilaami jiray, oo khaasatan midabka cilaanka guduudan ayuu marin jiray nebigu sal alay wasalam. dabcan katamka oo aynu brownka ama bunniga nidhaahno isagana waa jiray oo isagana waa soo arooray, laakiin nebigu sal alay wasalam kaa guduudan buu timihiisa marin jiray sal alay wasalam. dhowrkaa timee 20ka aan gaadhayn garhkiisa ama madaxiisa ka ciraystay rasuulka sal alay wasalam. waxaa kaloo mar kale tilmaameen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim nebigu siduu u socon jiray. markuu soconayo see buu u socon jiray? ma nin luuduu ahaan jiray mise nin si xooga u socdoo laxaadsaduu ahaan jiray? ayadana way tilmaameenoo waxay leeyihiin kaana idaa mashaa yatakafa. nebigu sal alay wasalam markuu socdo si xooguu u socon jiray. riwaayada kale cali bin abi aalib xadiidku warinayaa sii caddaynaya idaa mashaa takafa'a takafu'an kaannamaa yanxatu min sabab. nebigu sal alay wasalam markii uu soconayo si xoogu u socon jiray. waxaad moodaysaa siduu u laxaadsanayo u socdo inuu meel muxuu ahaay taag ah inuu ka daadegayoo kale. ruuxa markuu meel taaga ka daadegayoo kale si xoogu u socdaa. marka nebigu sal alay wasalam si cagajiidahoo daciifahoo tacbaana ma ahaan jirin. socodkiisu socod xoog iyo ragnimo ku jirto adag buu socon jiray nebigu sal alay wasalam. markuu soconayo socodkaasuu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. sidaasay socodkiisana ku tilmaamayaan. mar kale waxay tilmaameen nebiga sal alay wasalam farihiisa ama kuwa lugaha ha noqdeen ama kuwa gacmaha ha noqdeen, iyadana way tilmaameen oo waxay leeyihin kaana shathna alkafayni waalqadamayn. yani waxa weeye labada gomadood ee lugaha hoose ah iyo labadan kaf ee gacmaha qaybtooda hore ah nebigu sal alay wasalam wuu u adadkaa. adayga wax weye qallayf lagama wado, laakiin wax weye adayg baa ku jiray. markaad taabadsatay waxaad moodaysaa siday u dabacsan yihiin xariir inaad taabatay baad moodaysaa. laakiin marka la yidhahdo danka xoogga way adadkaayeen. shatniga saasaa laga wadaa. yani waxa weye khaliida alasaabic min alkafayni waalqadamayn. way adkaayeen, laakiin markaad taabato way dabacsanaayeen. sidaasna nebiga sal alay wasalam gacmihiisa iyo gomadihiisa ayaa ahaa. sidoo kale waxay tilmaameen lafaha nebigu sal alay wasalam ma lafo dhuudhuuban bay ahayd mise lafo waaweyn. waxay iyadana ku tilmaameen cali bn abi aalib wuxuu ku tilmaamayaa kaana dakhma alkaradiis. karadiista waxaa la yidhaahdaa waa lafaha madaxyadooda ama meelaha lafuhu isugu yimaadaan. yani waxa weeyaan labalafoodka waxay yidhaahdaan. nebigu sal alay wasalam lafihiisu lafo waaweyn oo xoog badan ayay ahaayeen, ama madaxa iyo mafaasisha meeshay ku kulmayaan ha noqoto ama si ahaantoodaba ha noqoto, wuu lafo weynaa nebigu sal alay wasalam. mar kale waxay tilmaameen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim nebiga sal alay wasalam halkan laabtiisa xataa way tilmaameen timaha ku yaala, oo waxay leeyihiin xadiiska cali bn abi aalib markuu nebiga tilmaamayo wuxuu leeyahay kaana طawiila almasruba. masrubada waxaa la yidhaahdaa waa timaha ragga laabta ka soo baxa ilaa muxuu ahaay xudunta intan ku siman
ayaa la yidhaahdaa. marka timo dhuuban oo qurux badan oo muxuu ahaaye dheer ayuu wuxuu ku lahaa laabta ilaa xudunta inta laga gaadhayo. sidaasuu nabigeennu ahaa salawaatu rabbi wasalaam. taana way ku tilmaamayaan oo timahana waa lahaa. yani waxaad garan kartaa xataa jidhkiisa inay meelo hoose ay nebiga arkeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. ninka tilmaamaya waa cali bni abi aalib. cali bni abi aalib waa in adeerkii waaye rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. marka taana waxay ahayd laabta nebiga sal alay wasalam iyo timaha ku yaalla ilaa xuduntiisa. waxaa kaleetoy tilmaameen nebiga indhihiisu say u yaaleen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. ayadana waxaa sheegaya jaabir bnu samura ayaa xadiidkiisa wuxuu leeyay kaana ashkal alcayn. nebigu sal alay wasalam isha jeexeedu way ballaadhnayd. ilaha bini aadamka ilna way soo buuran tahay, way uruursan tahay, ilna jeexeedan baa saa u ballaadhan. marka nebiga isha jeexeeda ayaa ballaadhnaa. waana qurux. waa midda ilaahay uu ku tilmaamay xuurulciinta jannada. wa xuurun ciin, gabdha cadcad oo haddana indhahoodu balballaadhan yihiin. ishu haddayna ballaadhnayn laakiin weyn tahay qurux ma aha. laakiin ishu markay yani weynideedu ballaadh ay tahay markaasay quruxsan tahay. waana sidii nebigeennu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. sidoo kaleeto waxay ku tilmaameen isha nebigu sal alay wasalam mar walba inay u muuqan jireen timahan xiribaha ah iyo kuwa kore ee muxuu xaadda intaba timihiisani in ay muxuu ahaaye indhakuulnaan jireen. oo mar walba tima madow oo aad moodayso in la indhakuulay agxalal caynayn sidii wax indhakuulan oo kale ayuu u muuqday. waana qurux waaye indhakuulka timuhu markay timaha isha ama korkeeda ama kuwan ka sii koreeya marka indhakuusha la mariyo qurux bay ku soo baxayaan. asagoo sidaa ilaahay u abuuro sidiisaba indhihiisu ay kuulnaayeen ayaa haddana wuu indhakuuli jiray nebigu sal alay wasalam sida axaadiista ku sugan. sidaas weeyaan. waxaa kaleeto ay leeyihiin kaana aswad alxadaqa. isha bu'deeda waa inta gudaha madow. nebigu waa u madoobaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. waad aragteenoo dadka qaar baa isha gudaheedu caddahay. yurubiyaanka oo kale marka hadda fiiriso qaar ka mida isha gudaheedii meesha innaga ina madowdahay ayaga wayba cadcaddahayba. marka nebigu sal alay wasalam isha bu'deeda madow waa u madoobaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. qaybtaasi way madoobayd. tilmaantay ka bixiyeen bay ka mid tahay. waxay nebigeenna tilmaan ka bixiyeen sidoo kale saxaabadu wejiga nebigu siduu u yaalay guud ahaan. waxay leeyihiin baraa ibnu caazib baa wuxuu leeyahay waxaa la weydiiyey akaana wajhu rasuuli lahi sal ly slm midla sayf. nebiga wejigiisu ma sida seeftoo kaluu ahaa? markaasaa wuxuu yidhi laa bal midla alqamar. seeftoo kale ma ahayne wuxuu ahaa dayaxoo kale. ayb sidoo kale jaabir bnu samura baa wuxuu leeyahay saxiixu muslimka xadiidka ku yaala kaana wajhuhu midla ashamsi waalqamari wa kaana mustadiiran. dhalaalka wejiga nebiga sal alay wasalam iyo iftiinka sida qoraxda iyo dayaxoo kaluu ahaa. laakiin qaabka wejigu u samaysan yahay waa wareegsanaa. yani wejina waa shuban yahay, waa dhuuban yahay. wejina waa wareegsan yahay. nebiga wejigiisu wuxuu ahaa sida muxuu ahay shay wareegsan oo giraangir oo kale ayuu u wareegsanaya. wareeguu u badnaa. dabcan ma sinmi karo afarta dhinacba laakiin nebiga sal alay wasalam weji wareegsan ayuu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waxaa intaa dheeroy sidoo kale tilmaameenoo wejigiisa qayb ka ah nebiga sal alay wasalam labadiisa dhabanna way shubnaayeen. abu hurayra wuxuu warinayaa xadiidka bayhaqi dalaa'ilka uu ku keenay wuxuu le kaana asiila alkhadayn. yacni hilibka dhabannada way yaraayeen. dhabankuna ma soo kuusnayn oo ma soo taagnayn. laf iyo hilib soo taagan iyo hilib badan iyo ma lahayn. bal waxay ahaayeen kuwo shuban bay ahaayeen nebiga sal alay wasalam oo soohan muxuu ahay dhabannadiisu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. dhabankiisana sidaasay ku tilmaameen. timaha nebiga garhkiisa sal alay wasalam waxay leeyihiin iyadana markay tilmaamayaan xadiidka jaabir bnu samura saxiix muslim soo samariyey ku sugan wuxuu leeyahy kaana kathiira shacri lixya. garhka nebiga sal alay wasalam timihiisu way badnaayeen. inay badnaayeen waxaad ku garanaysaa markay salaada ku daba tukanayaan qiraa'ada uu akhrinayana ayna maqlaynin oo siri tahay. inuu wax akhrinaya waxay ku garan jireen ayagoo gadaal ka taagan baa waxay arki jireen timaha garhka dhaqdhaqaaqooda. laanna ruuxu markuu dhaqdhaqaaqadlayo waxaa la dhaqdhaqaaqaya timahan. marka gadaal bay ka taagan yihiin. inuu wax akhrinayo waxay ku garan jireen timaha garhkiisa dhaqdhaqaaq jireen. marka garh weyn buu lahaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waana quruxda ragga waaye. ninku inuu garh leeyahay, garhkiisu weyn yahay, yani wax way hagaagsan yahay, waa qurux. waa shahaamo weeye ilaahay ragga siiyey tabaaraka wa tacaala. dumarkiiyo raggana ku kala duway. meesha maanta raggii muslimiinta in badanoo ka mid a ay quruxda moodeen in garhka la xiiro salka laga maro.
ma aha hadigii nabigeenu wuxuu ahaa inana amray isaguna sifadiisu ahayd inuu gar weynaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh garhkiisana uu sii dayn jiray sala allahu calayh waalihi wasalam waxay mar kale tilmaameen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim nebiga cidhibtiisay xataa tilmaameen cajaa'ib xataa cidhibtii nebiga say u taallay bay tilmaameen waxay leeyihiin oo ay tilmaamayeen jaabir bnu samura tilmaamay wuxuu leeyahay kaana manhuusa alcaqib nebigu sal lla lay slam cidhibtiisa hilibkeedu waa yaraa cidhibta hoose hilib ma saarnayn hilib saasa ma saarnayn waxaa sidaa ka duwan nebigu sala allahu alayh waalihi wasalam kubabka gacmaha iyo lugaha iyo kubabkiisu way waaweynaayeen laba lafood buu ahaa nebigu saan soo tilmaannay ma ahayn yani muxuu ahayey dhudhundhuuban iyo dhudhumo dhudhuuban ma lahayn nebigu sal alay wasalam bal dhudhumadiisa iyo lafihiisa waa kaan soo sheegnay xoog bay lahaayeen oo laba lafood buu ahaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaan ku soo gebagabaynaynaa xalaqadan nebiga sal alay wasalam jidhkiisu siduu u abuurnaa aan tafaasiisha kaga bixinaynay nebiga khaatamkiisii khaatamunubuwa waxaa jidhka nebiga dheeraad ku ahaa oo bini aadamka intiisa kale aysan lahayn kaatunta nebinimadiisa tilmaamaysa calaamadda u ahayd oo talow maxay tahay waxay ahayd cad kuusan ood ka soo bax moodo oo labada garbood dhexdooda kaga yaalla cad soo kuusan yaa oo calaamad u ah nebinimadiisa jaabir bnu samura wuxuu leeyahay ra'aytu alkhaatama bayna katifay rasuuli اllaahi sal alay wasalam guddatan xamraa midla baydati alxamaama waxaan arkay buu yidhi kaatuntii ama khaatamkii nebiga calaamadda u ahayd nebinimadiisa ku tusaysay labada garbood dhexdoodaan ku arkay buuhi isagoo ka soo bax guduudan aad mooddo hilib soo baxayoo guduudan aad mooddo oo u eg buu yidhi qooleyda ukunteeda oo kale shimbirta qooleyda la yidhahdo ukunteeda oo kale ayuu u ekaa buu yidhi halkaana nebiga sal lla lay slam calaamadaasuu ku lahaa oo xataa kutubtii hore ee ka horreysay qur'aanka ayaa tilmaantay nebiga aakhiru zamaanka soo bixi doono ilaahay ambiyadii rususha ku khatimi doono calaamaadka uu leeyahay baa lagu tilmaamay saas daraaddeed dadkii ahlulkitaabka ahaa ee nebiga la kulmay ee ama yahuudda ahaa ama kirishta nasaarada ahaa ee nebiga soo gaadhay waxyaalahay ka fiirin jireen waxaa ka mida markay raadinayaan nebinimadiisa doonay inay ku qancaan inay cadkaasi ama khatamkaasi inay meesha ku arkaan marka nebigeenu sal lla lay wasalam wuu lahaa waxaa kaleetoy saxaabadu sheegeen ridwaanullaahi calayhim nebiga caraftiisay sheegeen horta waxay dilaahdeen wuu dhidid badnaan jiray nebigu sal allau alayh wasalam waxayse tilmaameen dhididka nebigeennu sala allahu alayh waalihi wasalam inuu miskiga ka udgoonaa sida uu tilmaamaya anas bin maalikin oo nebiga khaadimkiisa ahaa 10 sano iyo ka badan nebiga u khaadimayey nebiga wuxuu yidhi dhididkiisa yacni waxa weeye miski ayaad moodaysa bal waa ka udgoonaa miskiga carafta nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka jidhkiisa ilaahay wuxuu u abuuray inta bini aadam la abuuray kamaal iyo dhammaystirnaan uu leeyahay ayuu ilaahay ku abuuray tabaaraka wa tacaala qurux buu ilaahay u dhammaystiray tabaaraka wa tacaala caraftiisu waa udgoonaa nebi moxamed sal alla alay wasalam jidhkiisa sidaasuu u qiimo badnaa tilmaamahaadna waa lahaa si guudna wax la mida oo lagu mathaalo oo la yidhaahdo waxaa la dhihi jiray wiilkiisii xasan baa u eg isaga wuxuu u ekaa saan soo sheegnayba awowgii ibraahim buu u ekaa laakiin cid la dhihi karayo nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bay 100% suura ahaan iyo jidh ahaan isu egyihiin lama hayo ilaahay baa siiyey tabaaraka wa tacaala sawirka quruxda badan iyo dhammaystirnaanta jidhkiisa ilaahay baa siiyey tabaaraka wa tacaala waana miisaanka quruxda aadamaha marka la yidhaahdo quruxdiisa ha la sifeeyo sidee baa ku quruxsan yahay sifaadka quruxdu waa kuwa nebi moxamed ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala iyagaa miisaanoo lagu garan karaa marka muxuu ahaayey marnaba ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka ilaaliyey jidhkiisa wax nusqaan ah ilaahay waa ka ilaaliyey aadamaha iyo makhluuqa inta uu kamaal gaari karo dhanka akhlaaqda iyo dhanka jidhkaba ayuu lahaa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi intaasi ayaynu xalaqadii labaad ee ku saabsanayd nebiga sal alla alay wasalam jidhkiisu see u yaalay see buu u abuurnaa maxay saxaabadu ka sheegeen intaasi ayaynu ku gebagabaynaynaa ilaa xalaqada saddexaad aynu kaga kulmayno intaa iyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu